wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa ku lamaansan hay'adda naafada qaranka sidaas daraadeed anagoo fulinayna baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud iyo go'aamadii 9 qodob ka koobna oo ay soo gaareen xukuumadda dan qaran ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ka wasaarad ahaan iyo hay'adda naafada waxaa naga go'an in aan hore u sii wadno maadaama guddiyo badan iyo qaybo badan oo qaybta haweenka aan hore uga qaadanay dib u xoreynta dalka iyo guddiyada kale oo aan ku jirno kana mid nahay hadda guddigan la magacaabay arrimaha qaraxii 29 kilomitir 5 waxaan hay'adda ay kow ka tahay dadka samata bixinta gurmadka u samaynayo sababtana dunida 8 bilyan ayaa lagu qiyaasaa dadka baahiyaha gaarka ah qaba wadamadana Soomaaliya iyo wadamada la midka ana 15% ayaa cadadka dadka lagu qiyaasay in ay yihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba Soomaaliya oo maalin kasta waxaas ay arxan daranayaasha ula kacaana way sii kordhaysaa ilaa 20% saas daraadeed waxay gudanayaan oo ku faraxsanahay inaan goobjoog uga ahay hay'adda qaran ee naafada in ay bixiyaan xaq dalkooda ku leeyahay helaanna waa waajib xuquuqdooda in lagu ilaaliyo taasoo aan u gudbin doono haddii allaha awoodda la ogolaado qabyo qoraalada iyo siyaasadaha u yaala hay'adda naafada qaranka oo hortabinta u leh xukuumaddana annagana ka wasaarad ahaan diyaar ayaan u nahay aan dadkeena u gargaarno uma tacsiyeynayno uma baroor diiqayno sidii uu ra'iisul wasaaruhu sheegay waa u argudaynaa insha Allah